السلام عليكم شاليال بانتي waxaan rabaa inaan idin wadaago application loo yaqaan Adobe Firefly. Adobe Firefly waa mid ka tirsan family-ka ballaaran ee shirkadda Adobe. Waxaa ka mid ah Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, InDesign, barnaamijyada caan ka wada taqaanaa weeyaan. Kan waa mid dhawaan ku soo biiray saa la socota caalamka AI-da ama caalamka garaadka macmalka badi baa adduunka ku soo kordhayay. Adobe Firefly markuu wuxuu sameeyaa waa isla arki doonaa. halkan website-kiisa dabcan asagoo application maahan waa web based way hadda waqti xaadirkan firefly.adobe.com ayaa laga galaa ama ka xumahay saan ogahay hadda so far waa lacag yani marka subscription ka haysatay Adobe ayuu ku furayaa inta ka ogahay saas weeyaan laakiin dadka aan haysan sidoo kale wuxuu leeyahay trial qayb tijaabo oo bisbuuc ama bil aad tijaabin karto oo kale halkan ayaan ka bilaabaynaa marka already wuxuu leeyahay su'aalahan wixii aad rabtid inaad qortid halkan ku qor marka hadda kuma qorina kan hadda uu noo qoray ayaan ku bilaabanaa generate aan dhahaynaa kan uu asoo meesha kaliya generate ahaynaa gudaha aan rabaa inaan ogolo si asaga ku noo sheegay maahan mid kale aan samaysano so hadda wixii asagu soo qoray hoostaan ku qorantaa beautiful cozy fantasy stone cottage yani guri qurux badan oo cottage ah oo dhagaxaan leh oo biyaag maraya waxaas uu leeyahay marka aniga ma rabo kan waxaan rabaa in boostkan ina aniga wax aan rabo aan ku samaysto marka wuxuu leeyahay halkan wixii aniga aan rabnaa gelin karnaa English bilowda kala duwan dabcan laakiin waxaan rabaa maanta qaab ka duwan aan sameeyno waayo prompts kan badan waxaan ku soo aragnay shirkadaha kale marka qaabka ugu fudud oo aan waxa aan rabo ku heli karo tusaale waxaan haystaa sawir oo hotelkan dabcan sawir foolxun weey laakiin waxaan ka rabaa qaybtaas kore ayaan ka rabaa dhulka fiirinada sawirka qaabkiisa kaliya sawirkan sawir eeg baan rabaa inaan sameeyo laakiin sawirkan intaan fiiriyo aniga inaan u fakaro oo dhaho hotel Corobe hore Soomaali ku yaal Muqdisho doomiye ag yaalaan sidana dhismo weyn oo burbursana inaan dhaha mar rabo yani inaan qoraalkan taan soo baxo dabcan hore ka soo galiya dabcan inaan taan sawirka soo akhriyo aan halkan an old building something aan qoro uma baan dabcan asaltiisa wuxuu siinayaa suggestions waxa had marka qorto wax u dhow su'aal wuxuu leeyahay an old building sits on top of a snowy mountain dhismo aad u weyn yani qadiim ah oo ku kor yaala buur baraf leh marka ma rabna aniga waxaan rabaa inaan dhismaha hadda intuu sayay mid la mid ah aan sameeyo marka maxaan sameynayaa dabcan saa ogtihiin waxaan adeegsan doonaa ChatGPT ayaan u imaanaynaa waxaan sameynayaa sawirkii asaga ahaa ayaan soo gelinayaa upload file ayaan leeyahay halkan ayaan imaanayaa oo ku soo upload garaysanaa dabcan markaan soo geliyo waxaan leeyahay ChatGPT ma qashka soo weydiisan waxaan leeyahay generate a symbol prompt to generate similar photo marla jina isticmaalaya on Adobe waa si raacan kara hadaan meesha xitaa ku sameeynayo Adobe Firefly sorry prompt noo sameeyo waan leeyahay aan sawir noocan oo kale ku sameyn karno English adeegsanaysa inuu yahay wonderful ama khatar inuu yahay muhiim ah kaliya wax yar bas inuu asoo ChatGPT ku fahmo kaliya ku filan waxaan sawirkan prompt oo loo yaqaan waxa meelaha ku qoran hadda u jeeda hoosta meesha ku qoran prompt ay ku qoran yani ChatGPT ha noqdo Firefly ha noqdo Adobe Photoshop ka hadda soo baxay oo xalqadeen ku xitaa ka hadlo doon qoraalada noocan la qoro ee ayaga lagu hadlo waxa loo yaqaan prompt yani waa nooc su'aal weydiin ama warsasho ah marka haddaan ku laabto wuxuu sameeyay asaga baa hadlay wuxuu leeyahay historical coastline scene feature in an ancient fort or castle with weathered walls near beach waa wuxuu leeyahay fort yani meelaha askarta dhismayaasha hore markii magaalooyinka hore markaan fiirino kale meelaha askarta markay soo weeraan ciidan soo weeraray kale qalcada laga galo ciidanka ayaa fort loo yaqaan sidoo kale isugu fahmay marka qoraalkan dheer oo dhan inaan qaato ma rabo dabcan tijaabin hadduu naga yeelayo waxaan leeyahay waxaan ugu darayaa by the way consider that this photo is from Muqdisho Somali yani waxaan rabaa erey Soomaali ugu daray ugu Soomaali la sawirkan in Soomaali lagu qoro marka wuxuu marsa laba sano promptgiisii ayuu dib muraajaca ugu sameeyay marka intaan soo qaadanaya haddaan waa arkayna hadduu wax dheer naga yeelayo qoraalka dheer meeshaan soo geli waa wada geli waa qaat هي try prompt عليه بالتشابين عارفنا حسوس صار يعني هذا
qoraalkii uu ChatGPT noo sameeyay asoo sawirka fiirinaya ayaan soo gelinay marka hadda already waxa uu sameeyay hada qaarkood sida meeshan kaga muuqata meesha sidin kaga muuqato 4 sawir oo kala cayn ayuu sameeyay waxaas dhigi karaa kan ayaa mala xogaa yar uu soo dhow marka still laakiin sidii aan rabay uma dhawaan marka wuxuu leeyahay barnaamijkan waxa loo yaqaan composition meesha composition ka imaado wuxuu leeyahay reference yani waxa leeyahay niyow promptkan qaado sidoo kale sawirka aan rabo sawirkan oo kala way marka waxa leeyahay soo gal marka sawirka soo galiyay meeshan ayuu soo galiyay wax ka bacdi dabcan wuxuu rabaa inaan aqbalo marka saad u jeetaan sawirka soo galina qaybta reference ayaan soo galina bas hadda mar laada waxaan la generate dhahaya marka dib u sameeyo markale marka waxaan rajaynayaa in uu sameeyo sawirkii hotelka Curuba ee qalcada meesha hotelka meesha ku sawirnaa in asig wax ugu sameeyo waa jeeda soo sameeyay waliba sawirkan korba ku dhufto angle-kii xagashi uu xigay dhinaca midig buu xigay in dhinaca bari ka xigay baddu ka xigtay doomeeyada meesha yaaleen wixii oo dhan meesha ayuu soo saaraya marka qaabkan hadda isticmaalay waa qaab runtii degdeg ah yani hadda waxaan ka yarayn daqiiqada ka yarayn aan ka badnayn ayaan ku sameynay sawirkii aan rabnay wax similar u eg oo ka agdhow yani caadiyan wadada ka dheer waxay noqon lahayd inaan halkan soo galo qoraalka dheeraad tijaabiyo maato dhan ku celceliyo regenerate dhan ku celiyo science marka shirkadan Adobe runtii wax badan ay soo kordhisay qishka kale aan sameeyay wuxuu ahaa inaan ChatGPT isticmaalnay ChatGPT saan sheegay hore sawir u gelinaysa marka gelisid waxa leedahay iga warbixi qaabkee waxa ku jira meesha waa maxay marka saas kaliya maaha ChatGPT aad ka baad isticmaali kartaa hatta su'aalaha aad Photoshop fill generator wax loo yaqaan aan ka hadli doono loo adeegsado Adobe Firefly loo adeegsado dhammaan in aad warbal tookadan adan qishka raba sawirkan oo kale hadii adaab AI oge haddaan sameynayo sidee ku sameyn karaa marka promptiga isi qishka taa ka soo qaadan karnaa saa idinku arkayseena hadda halkan ayaan ku tijaabinay routine oo noo shaqeys marka jaalayaal marka dambe oo Adobe Firefly adeegsanaysaan qaabkan adeegsan kartaan sawirka soo gelin kartaa promptiga saa fudud adeegsan kartaa waliba adigoo aan English ama luqad badan runtii aan aqoon wax badan u baahan saa fudud aad ku adeegsan kartaa marka xalqadan maadaama taatabi xeelad waa qaab laga yaabo inaad dhamaantiin taqaaneen laakiin sabtuustigan yarka ku dhex jira aan is oranayo wax badan ay idin fududeynaya ka faa'iidaysi wacan una faa'iideey assalamu calaykum